موسى وصوحد حيدانية انتي ضياك الوجود شيء كذبة هي هرجيسة يهبلوه ذا وحي مهما وحيد موسى وعيدك فصح موسى هذا يسوي وحوليه هاي كبيرة وفصح يا هاي وصوحد حيدانية لكنسي موسى ترى حمدي يا ظلمي شلي وكل شلي بدبسوا عليا إلهي ذيك واتشبياو haddii shalayto aad isla haydeen qoladan SSC cabaar bay yaacayaan oo wala soo afsharaya ogaatay in timir laf ku jirto xafiiska waxa naloo dhaariyay aniga saaxiibaday 10kii August 2023 maxaa naga haray waa naga sii dhamaanaysa haddii Ilaahay ka dhigo muddo kororsi waa kii farmaajo مدة كورنسي ما يقولون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وفدك صاحب بضي إلى السعودي وفودا قيمها بدن ككرتمي ضافها قارة يوروب حبناها تشاليدا aynu martida u nahay degan magaalada Roma waddanka Talyaaniga oo igu horeeyaan Haykel iyo Roberto dhamaantii waxaan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Soomaalidu marka Roma laga hadlayo waxa jira laba mahmaahado halku dhigay soo qaataan baa jira mid waa laga dhawaajiyo Roma maalin wada dhisin baa leeyahay ومهمها عالمية تاع الصومال وبدشاي وحاكلوا جت مهمها الصومالية وروما كسابسن ما هالكودك الصومالية روما كسابسن ما قرنا ما كبرت على وعبرة ما أود على وعبرة ما كلسون على وعبرة قرن ماي وكلمة تها تليان روما تشوجا ما أنت إلهي إذنك وحي من هاي SSC روما تشوك تادي إلهي هذا markale jaaliyadaha aad wakiil ka tihiin daafaha Yurub ku dhaqan salaam baan halkan iyaga u marinaya waxaan leeyahay waad mahadsantii dhamaantiinba mahadnaqa koobaad waxaan u jeedinayaa jaaliyadan ballaaran ee qiimaha badan leh ee martida aynu nahay ee ku dhaqan Roma jaaliyada Soomaaliyeed ee carigan joogta siday noo soo dhaweeyeen noo diyaafadeeyeen iyo siday qayb uga ahaayeen ama ay u soo qaban qaabiyeen كلن كان إنه رعسو قروح بدن روبرتو أو وريه سوماليات أو كهو جرا روما هبين كي أنا سود جيني وحنو تجنا جرانك استجي هيكل يزهاي وأنا هالنقية دلال كودا يزجر تاجودا إذن كا أو هجامياشي أما وكيل الذي شاليها قارة يوروبنا آديات بعد سلامتي وانا دي محنقيا سفر بان كوني مشقو أنا جاي وفد جال السعودي مقالة روما عركة طليانية إن أنا مكسي جودنا قرشة كتيرتي لكن ساديرها كده جواز قيبين النايو وحنسلق جرني أفر قفاز كبضنا هاي قرب النحو ففتادي لها يلاد مركا sida uu saaxiibkay wasiirada sheegay qayb baa idinku hari doonta annaga qaybteen haddii Ilaahay ka dhigo shaqooyinkan aad doon haddii Ilaahay yiraahdo safarka halka aan ku nimi guud ahaan waxa safar shaqo oo qorshaysnaa in muddo saad ka warqabtaan ba deegaankeenna waxa ka dhacay runtii colaado riiq dheeraaday oo muddo dheer soconayay colaadahaas inkastoo weli ay dhammaanin oo weli ay taagan yihiin haddana baaruudii qiiqasay imka dhici maysaay marka dagaalo noocaas ay dhacaanna waxay ka tagaan waxyaabo in lala macaabilo oo dib loo soo celiyo noloshii caadiga ahayd ay waqti qaadataay hadday noqoto xasilinta deegaanadii dagaaladu ka dhaceen sugidda amniga goobihii la isku dilay
iyo in guud ahaanba la doono nabadgelyo buuxda oo dadka deegaanadu ay ku naaloon doonaan haddii ilaahay ka dhigo sidoo kale waxaa dhaca dhibaatooyin fara badan oo dadkeena loo geystay baa dhacay oo tacdiye fara badan leh oo dil leh oo burbur leh oo duqayn leh isaga warrami maynaa arrimaha aan sheegay qaarkood waxay u baahan yihiin in la xoojiyo sidii nabadgelyo lagu heli lahaa ammaan qaarkood waxay u baahan yihiin in dadkii geystay dhibaatadaas cadaalad la horgeeyo qaarkood waxay u baahan yihiin dadkii gargaar in lala gaaro oo gurmad loo fidiyo safarka iyagu markaa wuxuu isugu jiray saddexdaa qayboodba ilaa iyo iminkana kulamadii qorshaysan aan ka qayb gallayba si habsameen noogu qabsoomeen natiijadeedana haddii ilaahay ka dhigo waa gaari doonaa ilaah idankii intaa waxaan kusoo koobayaa safarka aanu ku nimi iyo ujeedooyinkiisa haddii ilaahay ka dhigo wadankii aanu ka nimi idina aad ka soo jeedeen hadda nabadgelya laga joogo roobna waa ka da-ay ilaahay nimcooyinkiisa haynoo siyaadiyo hadday noqoto barwaaqo iyo hadday noqoto nabadgelyaantaba waxaase xusud mudan muddo dadku ay ku soo koobaan 15 sannadood baa dalka dhibaata ka taageed baa la yidhahdaa laakiin dhibaatadu 15 waa ka weyn tahay 30kii sannadood ee Soomaaliya dowladda dhexe ay maqnaydba dhibaatooyin gaara baa ka jiray deegaanada aynu ka soo jeedno ama aynu ku dhaqannahay intan iyo inta la midka waxay ku guda jireen dadaal dheeraad ah oo aan kala go' lahayn oo ay doonayaan in dadka iyo deegaanada dhibaatada lagaga saaro waxaa u dambeysay 6 February iyadoo shir nabadgelyo loo fadhiyo in maamulka Muuse Biixi ay magaalada Laascaanood caasimadda ah iyo dadka ku dhaqnaaba ay dagaal iyo madfac wada kaga qaadeen dagaalkaasi wuxuu soconayay tan iyo 25 August sanadii 2023 maalintaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu doonay in dulmigii iyo xaqdarradii lagu hayay dadkaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka dulqaado in ilaahay guuleeyo oo deegaankoodii oo dhammaystiran gacantooda ay u soo galaan dhibaatada intaa leeg ee muddada intaa leeg aynu kusoo jiray maxaa sababay aynu isweydiinaynaa wax kastoo dhacay ilaahay xaggiisay ka ahaadeen qadar bayna ku yimaadeen laakiin dhacdo kastaa sabab bay leedahay inaynu muddada intaa leeg dhibaato ku jirno dad iyo deegaanba asbaabaha maadiga ah muuqanaya ee aan akhriyi karayno midba ugu weynay middaasi waxay ahayd midnimo la'aan haysatay dadka deegaanka ku dhaqan khilaaf ba'an oo kala geeyey kala shaki iyo tuhum dhaliyey in laga adeegto midnimo la'aantaasi waxay sababtay wixii ina gaaray oo dhan inayna gaadhaan ma odhanayo oo malihi wixii ina gaaray innaga isu geysanay odhan maayaan laakiinse in wixii ina gaaray ciddii inoo geysatay ay inugu fasho asbaabta keentay waxaa ka mid ahaa innaga khilaafkeena iyo kala jeedkeena midnimo la'aanteena maalintii laysu yimid ee Laascaanood laysugu yimi ee midnimo la qaatay lagu guddoonsaday guushii iyo rabitaankeenii si yaroo fudud baa ilaahay inoo siiyey markaynu odhanayno waxan waa wax wanaagsan ama waa wax xun macnaheedu waxay wax wanaagsan aynu ilaashano waxa xun aynu ka fogaano innaga ka reer SSC ahaan waa maxay waxa aynu ku guulaysanay muuse iyo rajiimkiisu waa maxay waxa ay guuldarrada ku haleeshay waxaynu ku guulaysanay innagu saan sheegay asbaabtii inaga maqnayd intii dhibaatadu ina haysatay markaan la nimid oo ah midnimada guusheenna mar hore iyo mar dambeba waxaa asaas iyo saldhig u ahaa midnimadii iyo isu-imaatinkeennii iyo muwaafaqadeennii midnimadaasaa sabab u ahayd marka si guushaas aynu u sii hananno aynu u sii xajisanno oo ayan gacanteena mar kale ka bixin waxaa lagaba maarmaan ah
إن أينو إلى midnimada inay gudaheena midnimadaas dhammaanteen maamul iyo shacab iyo bulsho mas'uuliyad baan ka saaran waliba dadka reer SSC hadday kala shakiyaan oo tuhun kala galo isma qanciyaan oo kala tagaanay markaas waliba kii doona bila u sii gala waxa dalbaamayna maaha waxaynu u baahanahay haddaba haddiiba waxayna kala gelayaan in laga wada hadlo laga arrinsado la iska qanciyo oo tuhumada keeni karaya in dadku ay kala tagaan laga hortago oo la hor joogsado sidoo kale guuldaradii heshay muuse iyo rajiimkiisa muuse waxaan u soo koobayay maamulkiisa dadka aynu dariska nahay ehelka nahay dhibaatada waxa gelinsiiyay maamulka iyo rajiimka ay talada u dhibteen ka bulsho ahaan iyo ka ummad ahaan wixii ina gaaray waxba uga raaci mayno guddoon buu ahaa talada wada qaatay baa ahayd 25 Agost markii aynu gaadhnay xuduudooda baa waxaa la guddoonsaday in halkaa loo dhaafin dadkaan la nabadgeliyo loona sheego inaynan usoo socon dadkoodii iyo dalkooda toon hal dhibaataa jirtay dhibaatadaasuna waxay ahayd maamulkaas iyagu ay samaysteen oo laga yaabo inay raalli ka ahaayeen waxa uu samaynayo baa dalkeena iyo dhibaato ka geystay dhibaatadii waa la soo afjaray maamulkii waa la saaray ilaahayna waana guulay sabab aynu markaa usii tallawno aynu dhibaatadii mid lamid u geysano inooma bilaay guud ahaan dadka deegaanadaas horena waa u sheegnay haddana waa ku celinaynaa ehelnimo iyo derisnimo iyo nabad baanu diyaar u nahay iyaga dhibaatada gaadhay maamulkaasi waxay ka soo gaadhay hal sabab meesha inaga midnimada aynu ku guulaysanay khilaafkuna guuldarro inoo ahaa iyaga dhibaatadu iyo guuldarradu waxay kaga dhacday oo ilaahay u dowgalay xaqdarradii iyo dulmigii ay geysanayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala dulmigii ay geysanayeen buu ku ciqaabay oo guuldarradu ay ku haleeshay haddeer muuse waa soo xaydxaydanaya intii dagaalka lagu guda jiray kadibba reer Hargeysa iyo hablahooda waxay mahmaha ahayd muuse oo ciidanka fasax muuse hadda isaga wuxuu leeyahay ka bayra waa fasaxayaa oo soo xaydxaydanaya laakiinse muuse talaxumadii iyo dulmigii shalay uu ku jabay buu dib u soo celinayaa ilaahay idinkii waa jabayaa dadka aynu dariska nahay ee ehelka nahay ee weli u yaqaano maamul ay leeyihiin ama qaran ay leeyihiin u yaqaano waxaan leenahay anu mahmaahi maayo haddii markii hore talada idin seegtay maanta ninkaa iyo inta la socota iska qabta idinku annaga hanaga qabanina haddii shalayto aada isla haydeen qoladan SSC cabaar bay yaacayaanoo waa la soo afjaraya ogaatee in timir laf ku jirto ogaatee aan la is afjari karaynin wax kaloo aada soo naawishaan ama aada sii naawishaan aad sugtaan ma jiraan ninkaasi waa talaxumaan oo idinkaa naga badiya tala dambe usoo dhalaalmaysaay waxaanu idin leenahay iska qabta derisnimada iyo nabadgelyada aan ku baaqayno waxyeeluu ku yahay dhaawac buu ku yahay intaa fariintaasaan gaadhsiinaya dadkeenna reer SSC na waxaan leeyahay dulmiga iyo dhibaatada ninkaasi ku dhibaatoobay
ee uu galay mid lamid aynu ka fogaano si guusha iyo garabka iyo gargaarka ilahay aynu helayno yaynaan ku fekerin ama aynaan ku dhaqaaqin inaynu cid kale dulmi u geysano haba yaraatee inagoo tirsanayna in layna ku gafay kow in layna dhibaateeyey in layna dilay in layna duqeeyey in layna barakiciyey in laynagu yeelay waa liis dheer inagoo waxaas o dhan tirsanayna haddana inaynu isxakamayno oo aynan xadka dhaafin baa lagama maarmaan waddanka iyo deegaanka aanu ka nimi wuxuu marayaa xilligii ugu quruxda badnaa ugu wanaagsanaa ugu rajada wacnaa wuu wanaagsan yahay nabadgelya ka jirta waa qurux badnaa roob baa ka da-ay rajo iyo yididiilo ah in dadka kani ay noqon doonaan dad Soomaali hogaamiya baa muuqanaysa rajada ka dhabeynteedu waxay u baahan tahay inaan laga fariisan aan laga daalin oo aan laga harsan maamulka aan hogaaminayo anigu wuxuu ku yimi saad sheegteen rabitaanka shacabka qadarta rabbaaniga ahina waxay doontay in anigu aan horjoogo ka noqdo aan horena waa u sheegay haddana waa ku celinayaa inta maamulka aada idinku rabtaan garab taagan tihiin baan hogaamin karaya maalinta aada idinku garabkiisa ka baxdaanna hogaamintiisa waan ka fadhiisanaya waxaa markhaati cad ahaa abtigay cabdiraxmaan isagoo abtiimahaana abti u ah baa wuxuu yidhi waa yarahay laakiin dhaqaalahaan waan fiicannahayo intaasaanu bixin jirnay iminkan intaasaanu bixinaa isagoo waliba qajalaya dabcan intaana waa kasii yaryihiin waa markhaati madoon weeyaan biyo meel godan bay isugu tagaan qurbaha iyo jaaliyada waxa ka yimaadaa annaga isugu kaaga yimaadaan waxaan uga socdaa maamulkan ilaa iyo xafiiska waxaa naloo dhaariyay aniga saaxiibaday 10kii August 2023 maxaa nooga haray waa naga sii dhammaanaysa haddii ilahay ka dhigo muddo kororsi waa tii farmaajo muddo kororsigaa ma ogolinaan intii aanu joognay wax fara badan baa inoo qabsoomay wax fara badanna waa naga baaqdeen hadalka halkiisaa loogu tagaa waxaa inoo qabsoomay ilaahay subxana wa tacala deegaankeenu xor ka dhiga cadowgii dadkeena dhibaateynayay buu ilaahay subxana wa tacala inaga saaray kadib waxaanu gudagallay in la dhiso hay-ado maamul oo dadka kan arrimahooda tawaliya wasaaradihii iyo hay-adihii kale ee maamul dawliya aan looga maarmin baanu dhisnay waxaa la diyaariyey oo la dejiyey shuruucdii maamul ee maamul kastaa uu u baahan karayay haddaad maqasho meesha dowlad baa ka jirta iyo system iyo maamul macnaheedu waxa weeyaan shuruuc baa ka jirta meesha haddii aan shuruuc la diyaarinna maamulkaasi wuxuu iska noqonayaa dad qowlaho iska wada jooga intii ugu muhiimsanayd ama shuruucdii ugu badnayd baa maamulka iyo go-aha fulintu diyaariyeen baarlamankana waa loo gudbiyey waana la baasgareeyey waana kuwa iminka waddanka lagu dhaqayo waxaa la dhisay hay-adihii ammaanka oo loo diyaariyey inay ka hortagaan faalo kasta oo nabadgelyada lid ku ah hadday noqoto ka hortegidda faldambiyeedka iyo hadday noqoto ka dabatagga faldambiyada iyo cidda geysataba waxaa la dhisay ciidamo xasilina waxaa la howlgeliyey ciidamo boolisa oo dib u habeyn lagu sameeyey saraakiil aqoon lana loo dhiibay waxaa laga dareemi karayaa
caasimadda iyo nawaaxigeeda isbeddelka ka yimid ee nabadgeliyo ee fadliga ilaahay ka sokow ay suuro geliyeen hay-adaha amniga iyo saraakiisha ka shaqaynaysa ka hortagga dembiyada waxa ugu weyn tallaabo ay ka qaadeen waxa weeye mukhadaraadka halkan laga sheegay oo la oran karaayo fal dambiyeed kasta oo ka dhaca deegaankeenna isaga sabab u ah si fal dambiyeedka loo yareeyo waa in isaga laga hortagaa uusan deegaankeenna iman oo lala weyn baa lagu qaaday weynna wuu soconaya meel wacan oo maraya waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha ay qabteen marka dembiyadu ay dhacaan cidda dembiga geysatay ee ugu badan 48 saacadood lagu soo qabtaa markiisa joogaanba cadaaladda la horgeeyaa waa la xukumaa wixii ay mutaysteenna waa lagu qaadaa waad arkayseen waxaa dhacday mararkii ugu horreysay in maxkamad babliga la soo taago dembiilayaal gacan ku dhiglayaal kuwo kale oo qadiyadda iyo rabitaanka ummadda ka hor yimid la maxkamadeeyo la xukumay hadday noqoto gacan ku dhiglayaashiina in xukunkii muddo 4 saacadood gudahooda lagu fuliyey oo lagu qaaday hadday noqoto kuwo kale oo dembiye kala galayna iyagana lagu fuliyey oo ku guda jira xabsigoodii lagu xukumay ammaanka iyo waxyaabaha laga qabtay inahaas tusaale la soo qaadan karaya waxaa jira deegaankeenna muddada aan sheegay ee 30 sannadood ah deegaanada kale ee Soomaaliyeed uu ka haray sababta ugu harayna waxa weeye waxa lagu shaabadeeyay ama lagu calaamadiyay dhul la isku haysto oo lagu muransan yahay maamulkeenu wuxuu markii ugu horreysay ka hawlgalay in calaamadda iyo sumadda deegaan ku taalla laga dul qaado waxaan u maray dowladda federaalka ah ee haysata sharciyada ummadda Soomaaliyeed inay qayb ka noqoto in calaamadda la inaga qaado waxaan u maray hay'adaha internationalka ah ee ka hawlgala deegaanadeena iyo guud ahaan Soomaaliyaba in iyana lagu wargeliyo in calaamaddaas iminka ayan ansax noqon karaynin tii dowladda federaalka ahayd meel wacan bay maraysaa tii hay-aduna meel bay wacan bay marayaan wasiirin dibadda uu ka warramo waxaa soconaya process looga gol leeyahay in gabi ahaanba arrinkaa laga bedelo deegaanadeenna oo ay la mid noqdaan dhulalka Soomaaliyeed ee laga hawlgalo ee deeqaha la gaadhsiiyo ee mashaariicda la gaadhsiiyo ee la tegi karo ee la joogi karayo waxqabadka maamulkan muddada yar jiray waxaa ku yimi hantaaqooyin ama dib u dhacyo la oran karaayo waa laga maarmi karayay waa hee laga maarmi karayay maamul daadejinta gobollada iyo degmooyinka waxaa la diyaariyay sharcigii lagu maamuli lahaa waxaa loo gudbiyey baarlamanku weli ma ansixin sharcigaas haddaan sharcigaa la ansixinna wixii weli qabiya ahaanaya waxaan rajeynaya kala fadhigooda soo socda inay ku guulaysan doonaan ansixin doonaan inta ka horreysa waxaanu qaadnay tallaabo kale oo la odhan karayo iyada qudheedu dastuurku meel gaara weeyaan bishan gudaheeda waxaa soo bixi doona maamulkii oo dhammaystiran gobollada iyo degmooyinka ee si khaatumo oo la wada gaadhsiiyey waxaase xusid mudan in dhammaanba hay-adaha ammaanka ee booliska ugu horreeyo ay ka wada howlgalaan min daraf ilaa daraf deegaanada SSC khaatumo oo ayan sugaynin maamulkii degmada ama gobolka ee iyagu si madax bannaan iyagoo hoos imanaya taliska dhexe ee booliska SSC inay shaqadooda ku guda jiraan